maalin maalmaha ka mid ah yey ayaa doonay inuu ilmihiisa baro wajiyada nolosha iyo habka uu noolaan lahaa kadibna uu soo kaxeeyey oo waxa uu sheeda ka tusay adhi meel daaqaya waxaanu ku idhi ma aragtaa noolayaasha wiilkaygow hilbahoodu aad bay u macaan yihiin ee haddaad hesho waxbaa ku bedelena cun haddana waxa uu farta ugu fiiqay ninkii ilaalinaya adhiga oo ul sita waxaanu ku idhi wiilkaygow usha ninkaasi waa xanuun ee iska ilaaliyaanu ku qabane kadibna yeygii yaraa ayaa arkay ay dhex jooga adhiga markaasuu ku idhi aabbihii aabbo waa maxay kaasina wuu inoo eegyahay aabbihii ayaa idhi iska jir noolahaas aabbo meeshaad ku aragtana ama dil ama ka carar waayo waxaannu dhibiyo kadeed soo marnay nolosheedaba waxa uu sabab ahaa waxay noo eeg balse aan naga tirsanayn xikmadda sheekadan ku jirta waxay tahay waxaa jira dad badan oo inoo eeg luuqaddeenna ku hadla inala dhaqana aynu u aragna inay naga mid yihiin balse aan meel inaga soo gelin in laynagu dhex darsaday qaal cusub oo ka hadlaya qaaruun iyo halkay hantidiisii martay ayaan soo dhigay youtube-ka ee soo daawo mahadsani